dhammaan martida sharafta badan leh ee kasoo qayb gashay shirkan aan ugu talagalnay in laga tala bixiyo horumarinta dugsigan hoose dhexe ee la yiraahdo magaciisa Nasrudiin kuna yaala magaalada Gabiley oo ka mid ah dugsiyada cusub ee kasoo kordhay gobolka Gabiley. waxaa maanta qayn marti noogu ah macallimiintii hore waxbarashada gobolka Gabiley haatanna ah saraakiisha waxbarashada ee hogaamisa maamulka waxbarashada gobolka macallimiin in badan khibrad u leh mihnada iyo shaqada macallinimo muxuu ahaa qaar ka mid ah maamulka jaamacadda iyo aqoon-yahano kale oo ka socda dhalinyarta aqoon-yahankii gobolka Gabiley dhammaantood waxay maanta marti noogu yihiin shirkan tala bixinta ee lagu horumarinayo dugsi ahaan ka Nasrudiin ahaan annaga waxaa sharaf noo ah inaanu maadaama aanu doonayno waxbarasho tayo leh inaanu bixino inaanu wax ka weydiino ciddii ehelka u ahayd muxuu ahaa shaqadan in badan kusoo dhex jirtay si hadafka la doonayo ah arday tayo leh iyo waxbarasho tayo leh oo dalkeenu ku horumaro si loo gaadho in tale laga weydiiyo ciddii ehelka u ahayd waxbarashada. taasina waxaan u aragnaa arrin aad u muhiima aananu nahay dugsigii koowaad ee soo martay qaalin dhammaan aqoon-yahanadii macallimiintii iyo wasaaraddii aananu doonayno dugsigayaga inay ka tala bixiyaan qaabka wax loo dhigayo qaabka loo horumarinayo waxbarashadu leefalkii loo baahan inay soo gaadho manhajkiiyo sidii loo dhigayay dhammaan qodobadaas oo dhan inay ka tala bixiyaan baan doonaynaa. shirkeena wuxuu dhacayaa maanta ay taariikhdu tahay 12 bishii sideedaad 2017 halkan aan joogno waa goobtii dugsiga Nasrudiin ee magaalada Gabiley. aad iyo aad baan mahadsantihiin dhammaan marti sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay intayada martida kasoo qayb gashay martiqaadkan dugsiga Nasrudiin iyo macallimiinta dugsiga Nasrudiin iyo maamulaha dugsiga Nasrudiin dhammaantiin waad mahadsantihiin. horta waxaa habboon isla socodka iyo isogaanshaha waxaa laga helaa wax kaa maqnaa ayaa kuu soo baxaya oo dadkii waxa weeyaan iminka masalan markaynu dugsiyada joogno waxa layna yidhaahdaa waa in ay waalidka iyo macallinku ay xidhiidh leeyihiin. iminka waxa weeyaan bulsho dhan oo waxaan nahay Gabiley degan haddana waxaa jirta wada socodkeennu aad iyo aad buu liitaa. laakiin waxaa habboon in laysla socdo oo iminka dugsiga Nasrudiin waxaanu inoo soo abaabulay waxa weeyaan wax kala faa'iidaysi iyo fikrad aynu dadka meeshan ku uuman haddaynu nahay in aan kala helo ay tahay. annagana laftayada maxay nagu dhiiri gelinaysaa sidii aanu dugsigan ugu dhiiran lahayn ee aanu moogtahay in dugsi halkan noo yahay oo dad si fiican wax u maamulaya ay joogaan oo iskuulkiina dad fiican ay ka soo baxayaan ogaanshihiisii baan yeelana. waxaan intaa ku dari lahaa horta waxaanan ku tabcaynaa waa dadkeennii waa ilmaheennii inagu aan dhalay ka abtigeen dhalay ka adeerkeen dhalay inagu aan dhalay kaan dhali doono waxa aan qabanaynaa wuxuu hagaajinayaa dadka. marka waxaa loo baahan yahay had iyo jeer dee dawlad iska yari taal daranna waynu lahay in aynu u samirno aynu dawladdeennana u samirno inaynu dadkeennana u xeel baxno oo anaynaan wax kale ka doorane ay inala noqoto inaanu waddanka wax wanaagsan u qabanno. haddii taa laynaga waayo waxa weeyaan waan isla dumaynaa markaan isla dunlana inageenna nool iyo kaynu tabci lahayn aynu dhali lahayn iyo ka ilmaheenu dhali lahaa intuba way baaba'aya. markaa maanta haddii ilaahay halkan iskugu keenay dugsigan iyo maamulahana waxaan ku tahniyadeynayaa intan maanta oo keliya ha ka dhigina toosin wanaagsan baa adigu maanta la timid dee na sii toosi ya annagana insha allah intaad qabatay iyo in ka sii badan allaha nagu ilhaamiyo inaanu qabanno.